الله ولفظ مفرد او ان معنى تسين كليجيس مفيد ما ولفظ مفرد كلمه المفرد كان بمفيد هين نشيغا كشيكين جيرين عالمها حكيمها سيدك النبي دحفد مid Soomaali oo fadhiya masjidka nabiga dhexdiisa mid xaji wuxuu tagay maaha رسول الله 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 مسوح يا الله مهد يا لطيف يا لطيف يا لطيف marka wuxuu damcay inuu wax fahamsiyo marka dhabarkiisu fadhiyay magaca markaasuu maxamed shibbi qibladu iska sii jeesto Soomaaliga kaas ya latiif ya latiif ya latiif ule markaasuu maxamed كالسوفي كاسو شبكي مركو سي جيستي يا لطيف قوي محمد سوف وسوفي سو شب مركاسو يري قاعده كويدا وحنا اي شيء من بقى صوفيريه هاي و دواقد وحي شيء بس ابا قاعده كويدا الهي وحنا ويدي سمي يا لطيف الله وحنا ويدي سمي الله تو دواقد وحنا ويدي سمي ها dad ilaahi weeyna aad u qayliyo waxna aan weydiisayn adaadan ku dhawaaqay sida ila fahant inaadan saxsanayn khaliqu samawati wal ardi aad u dhawaaqay waxna weydiimay in meesha uu la soo istaago barihi bulshada waa lafdiga allah waa mufrad macna male la mahalla lahu min al adab wal ihtiram wa hada al adab iyo ihtiram mahal kulahayn qofkaasna ilaahi inuu u tooba keeno بني آدم إنه كحش هذا ما وخلد بني آدم وخلد ما لكن وخير الخطائين التوابون إنه إلهي الله بته أيها تاس أن أقول نصيحين إنه بني آدم حشود كيسة وعبد أتري ما يو تذكرنا قال هاد بني أول وعابينه إنه دم بيقول نحجيف ما إلهي سبحانه وتعالى اسم جيسي جليل كأها يا ومهمل oo wax macnaaho loo dejiye malahan hadalkaas hal huwa saxiix am khad amr wa hadal khalad ah la mahalla lahu min al adab wal ihtiram ahwli adab iyo ihtiram mahal oo kuleeyahay aysan jirin waa jur'a waliba dhiirasho ilaahay magaciisa lagu dhiiraday waxa jira dad oo ay ka khaldan tahay arabiyada in badan oo kamid ah oo u qaatay waxa wax faa'iideeyahay inay murakab kale yihiin oo waliba warkooda markaad u fiirsato aad ka dhadhaminayso murakabku shay mar hadii uu yahay kalaam ama jumlo uu yahay inuu sabab noqon karin ba muhmal mufradna waligiisba waxa la yiraahdaa faa'iido uu sacagta soo saarin waa hadalkaas waa khalad waa hadal oo khalad ah maxaa yeelay waxa wax faa'iideeya sida shaakha hadalkiisa ku wacad kutubaha kale oo naxwadana sidaas un bay u cadeynayaane waxa wax faa'iideeyahay murakabka kaliya ma ahan mufradkuna waxa uu faa'iideeyaa murakabkuna waxa uu faa'iideeyaa mararka qaarna labaduba waxay noqdaan wax muhmal oo waxba faa'iideyn meeshan ayada marka wax yar inaan xoogaa ku tawaaqufno oo aan mas'aladaas bayaanino lagama maarmaan way maxaa yeelay waxaan arkay oo aan dhageystay dad qaar ka mid ah waayahana dhiirashadii iska badatay mug oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisa iyo asmaa'diisa bal isaga dhiiranayo dad waxaan dhageystay oo iyo soo qabtaan لفظ الجلالة ومقع إلهي سبحانه وتعالى لها هي لفظ الله ومفرد معنى ملهن وحقوا فائديها يا مجرد مركا قفكاس أقو وحاكرنا على عسان ما داب لفظ الله معنى ملئ أو علا أقد لغاية ومفرد inuu aaminsan yahay mufrad xumo faa'iideeyay oo ay ka dhaadhacsan tahay
hadalku markuu laba iyo ka badan iska saaran yahay bisow wax faa'iideeyaa oo taas lafteedii laga sii dhadhaminaayo marnaba haddii lafdigu uu murakab yahay ma noqdo muhmal ma noqdo ayaa laga faa'iidaysanaa oo laga fahmaa waana khalad ayada lafteeda marka mufrad macno ma leh waa khalad mufrad waxbuu faa'iideeyaa macnouna leeyahay hadalku hadduu murakab yahay mar kastaba waxbuu faa'iideeyaahay macno la'aan ma noqdana lafteedu waa kharibaad kale si marka dadkaas arrintaas ayada ah ay ku dhiiradeen ay uga laabtaan intii ku ta'ahuri laheed ama run u qaado laheedna ay ka fooljignaato inaan mas'aladaas bayaanino lagama marmaan waxaa jira waxa la yidhaahdo mabxath fi lalfaad mabxath oo ku saabsan alfaadda ayaa jira oo nuxaaddu meelahan oo kale ayay si kooban uga hadlaan sida haddaba sheekha ad arkaysa lafdiga laba maruu soo hadal qaaday wax faahfaahis gooni ah oo hadda ku dheeraadana ma lahan laakiin kutubaha naxwada qaaran ugu tegi doonaa qaaraa meeshaan oo kale markay maraayaan oo kutubahooda bilowgoodii ayay markay ka hadlaayaan kalaamka iyo kelimada iyo qowlka iyo ayay lafdigana ka hadlaan laakiin waxaa jira funuunta qaar ka mid ah oo mabxadkaas alfaadda ku saabsan ayuku u samaysta cunwaan oo faahfaahiyo ayaa jira oo maalan manaadiqada oo kalea ka mid ah culammada usuuliyiinta oo kale ayaa ka mid ah mabxad dhan oo la yidhaahdo mabaaxid fi lalfaad ayaa jira oo marna ay ka hadlaan alfaaddu sida ay u qaybsanto marna ay ka hadlaan dilaalaat lalfaad waxa la yidhahdo mas'aladaas waxaan u iftiinimaynaynaa oon u bayaaninaynaa yacni waxaan rabaa qofka allaah macno ma leh oo waa lafdi mufrada yidhaahday hadalkaas shanaacada iyo qubxiga ku jira inuu waadix noqdo ayaan rabaa waadix inuu noqdo ayaan rabaa oo aad ogaatid hadalkaas inuu yahay laa maxalla lahu min aladabi waalixtiraam hadal adabta iyo ixtiraamka maxal kule uusan ahayn laa maxalla lahu min alacraab sooma maqli jirin laa maxalla lahudu way badanta waa hadal adabta iyo ixtiraamka wax maxalow ku leeyahay uusan jirin oo qofkii hadalkaas ku hadlay inuu ka toobo keeno ilaahay oo uga laabto ay waajib ku tahay maxaa yeele meel ka dhacyo weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaa'diisii meel looga dhacay u fiirso marka alfaadda markay ka hadlaayaan culummada manaadiqada iyo kuwa usuulkaba gaar ahaan say u qaybsanto markay ka hadlaayaan waxay yidhaahdeen alfaaddu laba qaybood waa lafdiga waxaa la yidhahdo waa laba un mid laa haalith wax saddexaad ma jiro labadaas ou lafdigu u kala baxo waa maxay lafdun muhmalun wa lafdun mustacmalun lafdigu labadaas u kala baxa lafdi muhmal ah iyo lafdi mustacmal ah kitaabka oo sulamulmunawraqa oo qaybaha koobaad oo mandiqaba laga bilaabo ah waxaa u qoran ciwaan ah faslun fii mabaaxith alalfaad ogow kutubaha sharxoo dhan fiiri halkaa markay ka hadlaayaan taqsiimka koobaad markii la rabo lafdiga in la qaybiyo taqsiimka ugu horeeyo aweliga ah oo wax ka horeeya aysan jirin waa in loo qaybsho lafdun muhmalun wa lafdun mustacmalun lafdi muhmal ah iyo lafdi mustacmal ah lafdi muhmala iyo lafdi mustacmala markaad ogaatay in lafdigu u kala baxo waxaan ogaanaynaa muhmal maxaa la yidhahdaa mustacmalse maxaa la yidhahdaa bal u fiirso marka ninka yidhi allaah waa mufrad macno ma leh bal labadaas qayboodoo lafdigu u kala baxo meesha ou gelshaan fiirinayna cid xugmi haysa male asaa is xugmi haya lafdigu labadaas u kala baxaa muhmal iyo mustacmal wax saddexaadna ma jiraan maa huwa almuhmal wamaa huwa almustacmal dhe marka muhmalna daabiduu leeyahay
mustacmalna daabid uu leeyahay muhmalka waxaa la yidhaahdaa maa lam yuudac lahu macnan lafdun lam yuudac lahu macnan waa lafdi aan macnaba loo dejin lafdi aan macno loo dejin ayaa muhmal la yidhaahdaa mustacmalna muxuu yahay lafdun wudica lahu macnan waa lafdi macno loo dejiyey lafdi macno loo dejiyey oo macno loogu isticmaalo haye bal waxaan soo qabanaynaa marka lafdiga allaah lafdi labadaas u kala baxaa muhmal iyo mustacmal u kala baxaa muhmal iyo mustacmalna waan kala tacriifinaa ninka yidhaahday waa mufrad aan macno lahayn labadaas mid muu gelsha waa su-aal adinkaa laydin weydiiyahay ma muhmalaadii ku biirshay mase mustacmalaaddii xaggee gelsha asiga markii loo fiirsho sida u dhigay hadalka allaah waa lafdi mufrad ah oon macno lahayn waxna faa'iideyneyn ma muhmalaadkii u gelshay mase mustacmalaaddii u gelshay xaggee ku jiraa waa sida haddii asiga uu ku watay ogow ilaa muhmal maxaan dhahna maa lam yuudac lahu macnan sow ma ah mustacmalna muxuu ahaa maa wudica lafdun wudica lahu macnan u ahaa xaggee gelsha marka muhmalkii u gelsha ilaahay subxaanahu watacaala ismigiisii jaliilka ahaa yaa waa muhmal oo wax macnaahoo loo dejiye ma lahan hadalkaasu hal huwa saxiix am khada mar waa hadal khalad ah laa maxala lahu min aladabi wاlاxtiraam ah weliba adab iyo ixtiraam maxal ou ku leeyahay aysan jirin waa jur'a weliba dhiirasho ilaahay magaciisa lagu dhiiraday in ilaahay magaciisa la yidhaahdo waa muhmal ilan alfaadu labaas ka anbaxdo mustacmal iyo muhmal lafdi ka baxaya ma lahan taqsiimka koobaad sidaas waa ka bacdi markii ay sidaas u qaybiyaan yaa muhmalkiina mar labaad waxaa loo qaybiyaa muhmalun mufradun wa muhmalun murakabun maxaa yeele days haddaad tira maxuu noqaa muhmalun mufradun waa haddaad tiraahdo daysun murkabuna maxuu noqonaa muhmalun murakabun markaas ka bacdiya mustacmalkiina lasii qaybiyaa waaba midka uu sheekh cabdiraxmaan alkhudari asheekh cabdiraxmaan alkhudari midka uu ka bilaababa hadalka faslun fii mabaaxith alalfaad markuu yidhaahdo qaybtii muhmalka dhan iyo iska jaray oo wuxuu ka bilaabay mustacmalka mustacmalu اlalfaadi xayثu yuujadu ima murakabun wa ima mufradu faأwalu ma dala juzhu calىa juزءi macnaahu bicagsi ma talaa wa huwa calىa qismayni acni اlmufrada kuliyunow juز'iyun xayثu wujida famufhimu ishtiraakin اlkuliyu kaasadin wacagsu اljuzyu wuxuu mustacmalkii ka bilaaba markaasuu sii qaybshay oo murakab iyo wuxuu u qaybshay mufrad ilaa mustacmalkii sida muhmalka oo u kala baxayo mufrad iyo murakab asigana sidaasoo kale markaasuu mufrad iyo murakab waxa la yidhah sii tacriifiyey markaasuu haddana wuxuu sii qaybshay mufradkii mar labaad mid la yidhaahdo kulli iyo juز'i ayuu usii qaybshay murakabkiina meel dambe ayuu asna ka sii qaybshay sheekha oo sheekh damanhuuri markuu sharxayey meeshaas wuxuu yidhaahda walaa cibrata bilmuhmali walidaa ahmalahu lmusanifu yidhahda walidaa ahmalahu lmusanifu ilaa mustacmalu alfaadi xayثu yuujadu ka bilaabo imaa murakabun wa imaa mufradu muhmalkii waa iska dhaafu yidhahda maxaa yaele wax cibraab ma laha fiiri marka ninka oo asmaa'dii ilaahay weliba lafdigii oo lafduljalaalada ahaa oo asmaa'da dhanba shamlinayay ilaahay walaa cibrata bilmuhmali ninka ku biirshay ka war ya waa jur'a dhiiranaan aad iyo aad u weynin badan waa arrin aad foolxumadeeda u leh oo tusinaysa qofkaasu inuusan carabiyadii sina uusan u dareensanayn marka waa hadal baadil ah allaah ma ahan mufrad muhmala ma ahane waa mufrad mustacmal ah aqsaamtii lafdiga xaggee uga jiraa mustacmalkiiu ku jiraa ilaa mustacmal maxuu ahaa
maa wadica lahu macnan sow ma ahayn halkaasuu ku jiraa mustacmalkii ayuu ku jiraa maahane muhmalaaddii kuma jiro maxaa yeelay lafdiga allah waaba haddi calam waa ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa caliyada ah ayuu magac u yahay waxaa loo dejiyey inuu tusiyo daatadii ilaahay subxaanahu watacaala waa lafdu mustacmalu wadica lahu macnan wa macnaahu daat rabbi subxaanahu watacaala alcaliya ma arkaysa waxaa laga yaabaa marka in allah calamun calى daati اlcaliya waan sheegi doonaa aimada islaamku inay sheegeene intaanan halkaas u gudbin waxaa laga yaabaa in bushi kaa galo oo yacni haddaad tiraahdo allah macnou leeyahay haddaad tiraahdo macnihiisuna waa daatadii waxaa bushi ku geli kara ogow lafdigan allah kaliya khaas kuma ahan isim kasta saas waay isim kasta maxaa macnihiisa ah daatada loo dejiyo musamaha macno u amog waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo oo bushi kaa galo oo waaba daatee ismiga musamihiisu waaba daatee daata saa macno loo leeyahay macno saad u leedahay waaba daatee taas way ka hadlaan culammadu waxay yidhaahdeen macnaha waxaa la yidhaahdo lahu idlaaqaan almacnaa lahu idlaaqaani macnaha laba idlaaq leh laba idlaaq ayuu leeyahay waxaa ka mid ah macnaha waxaa la yidhaahdaa maa yufhamu min alafdi macno waa la yidhahdaa maa yufhamu min alafdi maa yufhamu min alafdi maxaa looga jeedaa yacni madluulka lafdiga macno waa la yidhaahdaa daatan kaana ow macnan lafdigan madluulkiisa oo marka lafdiga lagu dhawaaqo laga fahmaayo ama daata ha ahaado ama macno ha ahaadee macno waa la yidhaahdaa hadda maalan zayd markaad tidhaahdo zayd lafdigaas oo ismiga ah maxaan ka fahmaa daata sow ma aha musamihii oo daatadii aan ka fahmaa sow ma aha zayd macnihiisu waa daatadii waad dhihi kartaa maa yufhamu min alafdi ilaan macno waa la yidhaahdaa haddaan idhaahdo tusaale ahaan xayaato haddaan idhaahdo lafdigaas maxaan ka fahmaa nolol sow ma ah nolol hadda ma daata amase waa macne waa macne kaasna macno waa la yidhaahdaa waa idlaaqa koobaad oo macnaha loogu isticmaalo maa yufhamu min alafdi marka allah muxuu noqonaa daatadii caliyadaheeda macnihiisa waa sax marka maxaa yeele maa yufhamu min alafdi fahuwa macnan daatan kaana ow macnan kaas waa la yidhahdaa waxaa kaloo macno la yidhaahdaa maa yuqaabilu wa yuqaayiru addaat waxa daatada qaabishan oo gayrka u ah macno waa la yidhahdaa oo waa maxay waa waxyaalihii macnawiyaadka ahay umuurtii macnawiyada ahayd macno waa lagu idlaaqaa wixii daato maxsuusa aan ahayn oo iska waxaa lihi macaanidii sida caqligii iyo cilmigii iyo waxyaala noocaas ahay waa la iska yidhaahdaa laftoodii macaani waa laga cabiraa marka taas bushi kaa geli maayo allah waa lafdun mustacmalun wadica lahu macnan macnihiisuna waa daatu rabbi subxaanahu watacaala sheekhan xaafidka ibnu kathiir wuxuu soo hadal qaaday lafdiga allah ayuu soo hadal qaaday markaasuu wuxuu yidhaahday allah calamun calى الrabi tabaaraka wa tacaala waa calam uu yidhaahday rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu calam u yahay lafdigaas allah lafdigaas uu inoo soo qabtay wuxuu yidhaahday calamun calى الrabi tabaaraka wa tacaala markaasuu weliba wuxuu kusii daray yuqaalu inahu alismu alacdam waxaaba la yidhahdo waa ismiga acdamka ah ismullaahi alacdamka ya ayaaba lagu sheegaa uu yidhaahda maxaa yeelay uu cileeyo ismullaahi alacdam waxaa loo yidhi u yidhaahda haddee
liannahu yuusafu bijamiici sifaat uu yidhahda sifaadda ilaahay oo dhan asiga ayaa lagu sifeeyaa markaad rabto ilaahay sifaaddiisa inaad sheegto mawsuufkii allaha laga dhiga sifaaddii kale asiga ayaa lagu sifeynaa wuxuu soo qaatay maalan aayaddii ahayd kamaa qaala tacaalى huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa caalimu اlgaybi wالshahaadة huwa الraxmaan الraxiim ilaa suuradda dhammaadkeedii aayadihii ahaa ayuu soo qaaday oo caalimulgaybi waa maxay waa sifa min sifaat illah xaggaa lagu sifeynaa allahdaasaad ku sifeynaysaa maadaama sifaaddii oo dhan asiga lagu sifeeyo saas darteed waxaa liinu yihahday waa ismullahi alacdam sheekhan kaloo isna xaafidka oo la yidhaha ibnu daqiiq ilciid waxaa jira sharax uu ku leeyahay arbaciinu nawowi sharax uu ku leeyahay ayaa jira markuu sharaxaas kelmaddan soo hadal qaaday wuxuu yidhaahday wa akharu اlculamaa'i ajmacuu calىa ana lafda aljalaalati ismullaahi alacdam wuxuuba ka dhigaaday culammada agarkooda inay arrintaas ku ijmaaceen ajmacuu calىa ana lafda aljalaalati ismullaahi alacdam fahuwa calamu calى daati اlaqdasi almustaxiqi lijamiici اlmaxaamid uu yidhah akar alculamaa sidaasay ku ijmaaceen lafduuljalaalada ayaa ismullahi alacdam ah waana calamun calى daati اlaqdas almustaxiqi lijamiici اlmaxaamid addaat lafdigaasu ma ahan mu'anat moogta saas darteed alaqdas almustaxiqi lijamiici اlmaxaamid sifaadda sidaasaa loo tadkiirinayo ma ahan mu'anat ma ahan waa mudaker lafdigaas asiga ah mu'anat ma ahan kutubaha qaar ka mid ah sidii sharxii la socday kitaabkan la yidhaahdo isaaquujiga maطlaca oo kale uu soo hadal qaadaa kelmaddaas ma ahan uu leeyahay mu'anat ma ahan lafdiga adaad mu'anat ma ahan ma arkaysa marka lafdigaasi muhmal ma ahan ee waa lafdi sidaasoo mustacmal ah oo haddana macno leh macnihiisuna waa daatada ilaahi subxaanaه wa tacaala bal sida culammadaas waaweyn ay sheegayaan waaba ismullahi alacdam yani ismullahi alacdam khilaaf aad u weyni badan ayaa ku jira aqwaasha ku jirta waxaa ismullahi alacdam looga jeedana 40 qowlay culammadu gaarsiiyeen laakiin labadaa sheekh hadda sida ay soo hadal qaadeen weliba ibnu daqiiq ilciid akharu alculamaa waxay ku ijmaaceen oo ka cabar soo ma jeed inuu yahay lafdigaas allah marka lafdigii sidaas ah oo ismullaahi alacdam culammadii qaar ka midaba ay leeyihiin waaba rag culammadii badankooda ku ijmaacay waa muhmal macno ma leh laa maxala lahu min aladabi wاlاxtiraam waa wax aan jirin midda kale markay culammadu leeyihiin ma og tahay lafdigaas waa ismullaahi alacdam waxyaalo badanay ka ictibaariyeen waxyaalo badan oo hadda ciladan xaafidka ibnu katiir ou soo qaada ay ka mid tahay markii sifaaddii kale lagu sifay tago asiga ayaa mawsuuf laga dhigaa waxay kaloo ka ictibaariyeen waxay yidhaahdeen lam yatasama bihi gayr اllah magacaas oo allaah ilaahay kayrkiisa cid oo la baxdo isku magacooda ma jirto ku dhiirad ogow asmaa'ada kale waa lagu dhiiraday asmaa'ada kale waa lagu dhiiraday oo khayrullaahiyaa isku magacaabay laakiin xataa mujrimiintii oo aad iyo aad u qaabta daraay xataa waa ku dhiira waayeen magacaas way ku dhiira waayeen kutubaha waxay qaar soo guuriyaan in nin hadda ka hor ou maaga canugiisa ula bax ee isla markii saaciqo cerka iyo ka soo degtay ay halaagtay waa ka cabsadeen marka ismullahi alacdam waayo waxay u leeyihiin taa ayaa ka mid a waxa loogu dhiira waaya meesha ku jira midda kale fiiri waxay kaloo ka ictibaariyeen markay leeyihin lafdigaas waa ismullahi alacdam culamo badanaa ilaan qabtee waxay ka ictibaariyeen markii oo asmaa'dii ilaahay lasoo hadal qaado asiga ayaa loo idaafiyaa asiga ayaa loo idaafina mudaafu ilayhi asaa laga dhigaa asmaa'dii kalena mudaafa laga dhigaa laakiin asigu saas ma ah asiga in yalla idaafsho asmaa'dii kale looma idaafiyo bal adigu hadda fiiri markaad maalan magaca arraxmaan waa magac ilaahay markaad dhihi tagto maxaa leedahay arraxmaan maxaa leedahay ismullaahi arraxmaan ismullah waxaad mudaaf ilayhi ka dhigaysa waa allahdii ogow magac kale soo qabo allatiif ismullah kulli asmaa'dii dhan asaad usoo idaafinaysaa laakiin lama arag maalan allah had rabtaa ilahay magaciisa waa inaad tiraahdo allah ismu raxmaan ayaduu leey maarta ama allah ismu latiif maadaama asmaa'dii asiga lee loo idaafinaayo oo cid ku dhiiratay inay la baxdo aysan jirin
oo haddana markii sifaaddii ilaahay la sheegi tago asiga mawsuuf laga dhiga lagu sifaynaayo halkaas waxaan ka fahmaynaa yidhaahdeen ismullaahi alacdam inuu asiga yahay ismullaahi alacdam inuu asiga yahay sidaasoo kale sheekhan la yidhaahdo sindi wuxuu soo guuriyey wuxuu sharax ku leeyahay sunan ibnu maajah sunan ibni maajah ayuu wuxuu ku leeyahay sharax sindigaas wuxuu ku sharxa kitaab uu u bixiyey kifaayat اlxaaja fii sharxi sunan ibni maajah wuxuu sharaxaas ku soo guuriyey sheekhaas laftiisa wuxuu sharaxaas ku soo guuriyey weliba wuxuu ka soo naqlinaa sheekhi weynaa الشheekh cabdulqaadir